xisbiga wadani laantiisa wadanka Sweden ayaa si weyn u taageeray go'aankii gudoomiyaha xisbiga mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro uu ka qaatay muranka doorashooyinka iyo komishinka. haddaba waa kuwan mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee dalka Sweden oo arinta ka hadlaya. anaga gudida Sweden ee xisbiga wadani waxaan halkan shir jaraa'id oo ujeedadiisu yahay inaan ku taageerno go'aankii xisbiga oo ka qaatay doorashada labada xisbi ay iyagu isku cimaamadeen iyo dimuqraadiyadda dimindaabiyada lagu samaynayo ee go'aanka qaldan laga qaatay yaa laanta Stockholm ee xisbiga wadani waxaan halkan ka soo jeedinayaa oo maqli jiray odayaasheena waxay oran jireen arrinaan soconayno marnaba suurto galeen qaalmo geela sabeen adaa saare korkooda reer kulmiye maanta waxa ay ka dhigan tahay taladoodii in ay qaalmo geela sabeen korka ka saaraan taasna waxa ka dhalan kara oo la arki kara maanta dadkii reer Soomaaliland oo dhan waxa haya warwar ka haya mustaqbalka wadankooda iyo dalkooda. Soomaaliland maanta waxay u baahan tahay in ay doorasho xaq oo xalaal ah ka dhacdo. haddaba waxa loo baahan yahay in Soomaaliland la badbaadiyo اعترافkeeda iyo horumarkeeda wuxuu ku jiraa in dimuqraasiyaddu mid loo wada dhan yahay ay noqoto. haddaba waxaan ku talin lahaa in maanta gudida doorashadu ayagu is casilaan halka maanta wadankii qaska lahayd dhibaatooyin waaweyn oo wadanka waxyaabo adag keeni kara. dawladdu waxay ku mashquulsaneed doorasho gacan ku rumisa laakiin hooshii loo diray ee qaranka way ka mashquulshay. iminka waxaan leen war dadka maanta gacanta dambiga geystay in la soo qabto bay arintu ku eegtay ma aha in la yiraahdo xaalad degdeg ah oo kolba dawladdu ma aha inay dadka jahwareeris kala sii geliso. waxa sheegay in gudoomiyihii garabka dhalinyarada xisbiga wadani Maxamed Sidiiq Dhamme si gardarra ah oo bilaa sharciya iyadoo maxkamad ama waarar maxkamada la keenin in la xiray in sida ugu dhaqsaha badan la xorriyadooda iyagana loogu soo celiyo. haddaan nahay muxuu ahay xisbiga wadani ee Stockholm Sweden waxaanu garab taaganahay oo aan go'aankiis raacayna hogaamiyaheena ruuxiga ah Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi. Barkhad Cabdilaahi Maxamed, Home Cable TV, magaalada Stockholm ee wadanka Sweden.